wasiirka wasaaradda waxbarashada sayniska Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Diriyo Torno oo qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradahan ay door muhiim ah siinayaan dadka qaba baahiyaha aasaasiga horta waxaan doonayaa ku sheego dugsi quraba ma aha waxyaabaha mudnaanta wasaaradda waxa ka mid ah caruurta u baahan in caruuraha kale la soo gaarsiiyo ayaa mudnaanta koowaad ee wasaaradda waxbarashada ah ee waliba sanadkan iyo sanadaha soo socdaba caruurtaana waxa ka mid ah saad u sheegtay kuwa baahiyaha gaarka ah qaba oo aan ahayn oo qura ama qof indhahala ama dhagaha ama xubnaha jirka qaarkood laakiin xitaa waxa jira waxyaabo la yiraahdo learning disability oo inuu waan qofka yar waxyaabo qaarkood markuu fahankiisu yar yahay kaasa u baahan xitaa in la soo gaarsiiyo qaar baa jira kuwa kale ka aqli badan oo Ilaahay siiyay oo gifted la yiraahdo ama kuwa kale ka dheereynaya dabeetana kuwaas oo kale waxay u baahdaan waxbarasho kuwa kale ka duwan in la siiyo hadii kale mashquul buu noqonayaa sidoo ciyaalka hoosta uga gijinay hadhoona waa la eriyaa dabeetana waxa inaga lunta maskax badan oo wixii loo aluuf lahayd marka taana runtii xoogan saarana waxa kale oo kamid ah hablaha oo ka waxbarasho hooseeyo inuu ognahay inamada boqolkiiba imsa hablood hadeer waxa la yiraahdaa boqolkii wiil ee dugsi hoose dhexe dhigtaba 80 hablood baa la dhigtaa marka 20 baa maqande marka secondary la gaadhan way sii yaraanayaan habluhu marka jaacada gaadhan way sii yaraanayaan waxa kale oo kamid ah dhulka miyiga oo wax soo saarkeena ugu badan ee beeraha iyo xooluhu ay ka soo baxaan laakiin caruurtiisi aanay wali in badan aanay iskuulada dhigan iyadoo la eegayo qaabka ugu wanaagsan ee wax loo bari karo oo dabeecadda noloshoodana la eegayo ma habeenkii weyn wuxuu dhiganayo maalintii xoolaha raacaan mise waxaanu sameeynaaba qaab kale oo technology inuu adeegsano isagoo adiga la jooga ama beerta uu wax baran karo mise iskuulo la guuray inuu sameeynaa marka horta caruurtaas ayuu xoog saarana hargeyso quran ma Somaliland oo dhan meel kasta way joogan caruur special needs ama baahiyo gaar ah qaba wasaaraddu waxay u aasaasay qayb dhan xafiis gaar ah oo xafiiska baahiyaha gaarka ah la yiraahdo shalayto aan kaga faa'iideysan fursadane shalayto waxaan qabanay shir baahiyaha gaarka caruurta Soomaaliya xafiiskayga ku qabanay waxaanu oo shirka joogay madaxweyne ku xigeenkii u horeeyay Somaliland Xasan Ciise Jaamac oo caruur baahiyo gaar ah qabta la socday oo doonayay wax la qabto marka Xasan Ciise waxaan ku niri adduunyada waxa laga yaqaan waxa la hirgelinayo qof ambassador la yiraahdo ama waxa de u ololeeya Xasan Ciise marka Xasan Ciise Jaamac shalaytay isla garanay inuu caruurta special needs kama baahiyaha gaarka ah qabta oo ambassador u noqdo u ololeeyo oo waxa kale oo sameeyay waxaan la xiriirnay miisaaniyadeena way ku dartay dawladdu oo mudnaanta ay siinayay waxa kamid ahaa caruurta baahiyaha gaarka ah miisaaniyad baa loogu daray taasna de waa la isticmaalayaa wixii loogu qabanayo Somaliland oo dhan oo iskuulka aad sheegaysaa uu ku jiro waxa kale oo la xiriirnay adduunyada kale hay'ada caalamiga oo caawiya caruurta baahiyaha gaarka qabta marka taasina way noo socotaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa in gobolada dalka oo dhan markaan ugu yaraano gobol walba iskuul baahiyaha gaarka ah aanu ka hirgelino inta ka dambeeyana degmooyinka oo dhan lagu fidiyo marka mudnaanteeda koowaad bay ku jirtaa Xamse Tabari Television Star Hargeysa